halkan ayaa lagu bunaysanayaa dabcan salool iyo cambuulana way barbar taallaa. ujeedka kulankan oo isugu jira duco iyo u dabaaldegid waxa ay gooni u tahay maamuuska mudane Cabdishakuur Shaasha oo madaxweynaha Hirshabelle u magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta hiddaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Hirshabelle. waxaa martida kulankan ka mid ah xubnaha firfircoon ee saxafiyiinta Jowhar iyo taageerayaasha wasiirka, waxaana qaybaha dabaaldega ay kaga luqeynayeen heeso dabacsan. madashan oo aad loo soo camiray waxyaabaha aad ku arki karto waxaa ka mid ah dalagyada ka baxa Jowhar iyo wiilal iyo gabdho laga dheehan karay wajiyadooda ku faraxsanaanta xilka loo dhiibay Shaasha oo si gaar ah u taabanaya saxafiyiintii munaasabadan soo agaasimay oo badankoodu u ahaa macallinkooda warbaahinta. qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha munaasabadan ayaa hambalyo iyo dardaaran la wadaagay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta hiddaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Hirshabelle mudane Cabdishakuur Shaasha. waxaan kulankan aan ku taageeraynay ustaad Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed oo loo magacaabay isla markaana loo dhaariyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda dowlad goboleedka Hirshabelle. runtii taytalkaas iyo mas'uuliyadaas waxaan aaminsanahay in uu yahay qofkii mudnaa qaadi lahaa inuu yahay. runtii Cabdishakuur waxa ku hortaalo howl adag, wax badan wasaaraddaas ma aysan shaqaynin, shaqo adag aan sugayso. waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaan halkan ugu hambalyeynaa dhammaan anagoo ku hadlayna magaca suxufiyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe wasaaradda warfaafinta qaasatan ku-xigeenka wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cabdishakuur Shaasha. waxaan leeyahay xilka lagu dhiibay Allah ha kula garab galo oo noqo kii ka soo baxay waajibaadkii loo igmaday. dhammaan wasaaradahana waxaan ku bogaadinayaa in ay gutaan waajibaadkooda. waxaan maanta halkan isugu imaanay xaflad lagu soo dhaweynayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabelle uu dhawaan magacaabay madaxweynaha Hirshabelle mudane Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha. waxaan leenahay hambalyo xilka lagu magacaabay. waxaan leenahay Ilaahay ha kula garab galo dhammaan golaha wasiirada ee la magacaabay. waxaan leenahay Ilaahay la garab galo. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha Hirshabelle oo u gartay Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha in uu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaan rajeynayaa insha Allah in xilkaasi aad ka soo sida wanaagsan aad ugu shaqeyn doonto. halkan waxaan isugu nimid in aan xal yiraahdo hambalyo aan ugu dirno Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed oo goor dhabeeyay loo magacaabay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda Hirshabelle. run ahaantii mudane madaxweyne waa kaaga mahad celinaynaa rajada uu lahaa Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed ee adiga aad u fulisay. mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waan kaaga mahad celinayaa. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta waxaan leeyahay xilkaas lagu dhiibay Ilaahay ha kula garab galo. munaasabadan sharafta leh waxa loo sameeyay waa walaalkeen Cabdishakuur. waxaan leeyahay dheefoonaan adiga lagu dhalay dhaxal baad u leedahay u dhidid ummadda hor soco dharar iyo habeen ha kugu soo dhiiratay. muddo 13 sano ayuu Shaasha ka mid ahaa bahda warbaahinta Soomaalida, waxaana uu soo saaray saxafiyiin badan oo maanta ka howlgala maamulada Puntland, Hirshabelle, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Banaadir. waxaana 13 sano kadib loo arkay inuu yahay shakhsi aqoontiisa ku anfici kara dowladnimada Hirshabelle, taasi oo sababtay in ugu dambeyn madaxweynaha Hirshabelle uu u idmaday xilka wasiir ku-xigeenka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Hirshabelle. Cumar Guxurbaynta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.
inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.